waxaan ku suganahay isbitaalka Soomaali Syrian oo kamid ah isbitaalada ugu caalamisan ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan isgoyska Zobe ee Lamyaraha waana isbitaal u adeega shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho una qabta adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin waxa uu sidoo kale isbitaalku sheegay in mar walba ay heegan u yihiin inay ka jawaabaan baahiyaha ay qabaan dadka markaasi danta yar ee aan awoodin inay wax sameeyaan iyo sidoo kale in loo fududeeyo dadka u baahan isbitaalka qaabka ay ugu heli lahaayeen adeeg dhameystiran oo hufan haddaba Dr. Cabdikariin Axmed Maxamuud oo ah dhakhtar ku takhasusay dhanka daaweynta cudurrada ku dhaca haweenka iyo dhalaanka iyo sidoo kale qaliimada ayaa waxa uu ka warbixinayaa qalin uu sameeyo kuna guuleystay laguna sameeyay haweeney Soomaaliyeed kuna jirta halkan waxa jiray bariyahan oo dhanba maxaan ku raadaa oo isbitaalka aad iyo aad ugu badnaa xanuuno badan oo bukaano kala duwan ay u imaanayeen oo ay ka mid tahay maxaan ku raadaa burooyinka maxaan ku raadaa ka soo baxa dumarka burooyinkaas oo noocyada ugu badan ay ahaayeen kuwa loo yaqaano burobiyoodka burobiyoodku ayaga waxay noqonayaan noocyo kala duwan oo qaar yar yar oo la daweeyo iyo qaar aad iyo aad u weyn intaba isugu jira waxaa jirtay hooyo maxaan ku raaddaa ay ka soo baxday buro aad iyo aad u weyn isla markaana maxaan ku raaddaa tagtay isbitaallo badan maxaan ku raahdaa ugu dambeyn waxay timaaday isbitaalkeena waxaana maxaan ku raahdaa u sameynay baaritaano badan baaritaanadii aan u sameynay ka dambe waxaan ogaanay inay ku taalo buro aad iyo aad u weyn una baahan qaliin maxaan ku raahdaa baaritaanadii markaan u dhammaynayna maanta ayaan u sameynay operationkii waxaana ka soo saarnay buro aad iyo aad u weyn oo maxaan ku raahdaa kaga taalay ukaxansidaha buradiina maxaan ku raahdaa ilaahay uu inoo fududeeyey inaan soo saarno maxaan ku raahdaayey waxaan rajaynaynaa maxaan ku raahdaa in howlaheedoo dhan si hagaagsan ay ugu dhammaadaan isbitaalka Soomaali Syrian waxa uu sheegay inuu yahay isbitaal u taagan oo adeegyada shacabka Soomaaliyeed iyadoo ay ka howlgalaan dhaqaatiir iyo shaqaale loo carbiyay Faadumo Cabduqaadir warbaahinta Shabeelle magaalada caasimadda Muqdisho